dowladda Kenya waxay dhawaan kordhisay cadaadiska dhinaca diblomaasiyadeed ee ay saarayso Soomaaliya iyadoo garoonka Jomo Kenyatta Airport ay ka soo celisay wasiirro iyo saraakiil Soomaaliya. Kenya ayaa sidoo kale dib ugu soo rogtay in dhammaan duulimaadyada ka imaanaya Muqdisho ay soo maraan magaalada Wajeer si loo baaro. Soomaaliya waxa ay ka jawaabtay talaabooyinkaasi waxayna sheegtay inaysan ka turjumayn daris wanaag. Haddaba waxaa soo baxaya baaqi loo jeedinayo Soomaaliya oo ah inay qorshe diblomaasiyadeed ka lahaato siday ula macaamilayso Kenya oo laga yaabo inay qaado talaabooyin kale. Wariye Harun Macruuf ayaa inoo diyaariyay warbixintan. Tallaabooyinka ay dhawaan qaaday Kenya waxay u muuqdeen kuwo qorshaysan oo aan ku soo booda ahayn, waa sida ay ku doodayaan qaar ka mid ah khubarada Geeska Afrika iyo arrimaha Soomaalida darsa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa laanta juqraafiga bii'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. Dowladda Kenya waa dowlad ay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo ama waxaan af Ingiriiska lagu yidhaaho institutions. Marka waxaa sidaya dowladda Kenya dabka ku shidana waxaa weeye markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dalalka badda wadaaga halkay iska galaan iyo sida isku galaan mid walba waxay ku cadaynaysaa inay dooda Soomaalidu ka saxsan tahay dowladda Kenya. warwarkeeda ugu weyna waxa weeye in maxkamaddu sanadkan hadday go'aan gaadho la odhan doono ha ka kacdo. marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan waa afgobaadis meesha loo socda waxa weeyaan bal in la gilgilo Muqdisho si ay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale inuu heshiina walaal. taas weeyaan tashada dowladda Kenya. marka su-aashu waxay tahay maxaa xigi kara oo Kenya la iman karta ciidamadeedii waddankay joogaan weli Soomaaliya qaxooti fara badan oo 100,000 kun ayaa jooga Kenya. maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin karaa? way adag tahay laakiinse dee dowladdu kiiskeegu u dheeryaho kolba khiyaano cusub baa lagala soo bixi karaa kiiskaasi. horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood iyadoo qurihi maamushay waxa weeyaan qormada midoobay qaybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa. ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa ka soo gasha qaxootiga dowladda Kenya ayna afka ku dhufanayn. ta ku xigta ciidamadeedu inay joogaan halkan haddii dee qolooyinka Nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda Kenya leh waa in meeshan badda la isku haysto xoogba lagu qabsada inkastoo maraakiib badan oo ciidan oo Kenya waxay leedahay aan jirin oo badda sidaa u xukumi karin. waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka Soomaaliya ee AMISOM ku qaybsan si aan midowga Afrikaanku una ogoleen in loo isticmaalo. laakiinse arrintaa hadday ku kacdo jarimo weyn ayay noqon doontaa. Kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee Hague ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan. khubaro kala duwan ayaana ku doonay in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee Kenya qaaday. Rooble Garaad Cabdi waxa uu taxliiliyaa arrimaha Geeska Afrika gaar ahaan siyaasadda Kenya. waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka Kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga. ma hayno wax cad oo dowladda Kenya ku leedahay Soomaaliya ula dalleen ama dadka Soomaaliya ku wajan lama hayo. laakiin ani arrintan waxaan u arkaa nidaam waddanka Kenya ay ku doonayso inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeeda, hadday tahay amniga sugitaankiisa, hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysa Soomaaliya ayaa mahan dowladda Soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo Muqdisho oo amniga gacanta ka sii baxayo waxa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay la ku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay la ku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda Kenya talaabada hadda ay qaadayso. laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaala Kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha. markii ayaantii dowladda Kenya ay ka caawatay shirka London amaba dowladda Soomaaliya ay ka caawatay safiirkeeda u yeeratay safiirka Kenya Soomaaliya ka jiro la ceeri waxaa dhacay wada hadal u dhaxay labada madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia idan waxba la isku afgaranin buu shirka dhamaaday. dowladda Kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xalliso gogosha may dhigteen oo madaxweynaha Soomaaliya inuu yeerato ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa soo dhan waxay u samaysay in ay dirsnimada iyo diblomaasiyadda ay sideed u tiirsanaato.
waxaa haddaba jira baaqyo ka soo baxaya aqoon-yahano Soomaali ah oo iyaguna ka digaya in Kenya ay qaadi karto tallaabooyin kale sida inay faragelin ku samayso siyaasadda gobolada gaar ahaan Jubbaland iyo inay ganacsatada Soomaalida cadaadis saarto ama ay ka cayriso Kenya iyo inay xitaa dowlad military ka samayso xuduudda waxaana baaqyadaasi qaarkood ay ku doodayaan inay Soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyadda Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa ka warramaya dhowr sannadood hataa ilaa markii xasan sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay macadkii diblomaasiyadda in wasaaradda amuraha dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubaro ah oo waxaa kala shaqeeya dowladda meel kaloo kasoo ifbaxasa qorshaha halbowlaha istaraatiijiga ee dowladda Soomaaliyeed ku soconaysana ma jiro oo meelo diraasada laga sameeyaa maba jiraan oo dowladdu leedahay ama waddanka gudihiisaba ka jira mid iyo laba yaryar mooyaane marka waxa weeyaan in ficilkan laga jawaabo la ficiltamo waxa ka weyn in laga baaraan dago waxyaabaha u socoto Kenya si barnaamij ka buruud sareeyo loo dhigto ayaa muhiim ah laakiin imika waxa muuqato kolba wixii maadun laga jawaabiyo walaal dadka qaar ba waxay leeyihiin maadaama Kenya ay saan u cadaadinayso dhinaca diblomaasiyadda Soomaaliya waa in iyaduna ay samaysataa isbahaysi waa in la dedejiyaa barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia maxay kula tahay waxa weeye waxyaabo immediate si degdeg loo qaban karo looga baahan dowladda Soomaalida ee qodooyin kala u yeelataa jira midalan marka diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada Wajeer Soomaaliduna sidii dowladda hore xasan sheekh watiroon hatiraha bas jaadkuna ha joogsado ilaa inta amuraha aan ka xalinano wig uma adkaysan karto dowladda Kenya dhaqaale la'aanta jaadka soo gelaysa taasi waa koobaad ee loo baahnayn ba imika in cid kale laga xaajoodo xulufo kale laga samaysto arrinta dhaqaalaha isku darsiga Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia waa arrin muddo dheer ay u baahan tahay in laga baaraan dago oo haddii imika inta lagu ambabaro lagu boodo waxa laga yaabaa inay jari naga tuurto waayo waxa ka socda waddanka Ethiopia gudihiisa waan fahamsanahay Eritrea hadalkayga badhaaf marka waxay la tahay xulufada hal la dhiso diblomaati kale hal loo dhiso laakiinse waa in la ogaadaa inay ka dhaxayso Ethiopia iyo Kenya inay ka dhaxeeyaan muwaafaqo siyaasiga iyo istaraatiijiga oo 1963 la kala saxeexday si Soomaaliya labadu ay iska caabiyaan tii wali way jirtaan kastoo dowladda Ethiopia isbedel ku yimid Eritrea way fogtoo wax weyn oo inoo tari karaysaa ma jirto marka in amuraha la kala qaado si ay u kala sareeyaan maxaynu inna ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijkii siyaasadeed ee istaraatiijiga ah ee hagaaya wasaaradda amuraha dibadda in si degdeg loo dhiso iyo in la dhaho